السلام عليكم ولا قلبي وولاشين سيناء oo idin leh markasta farxad igula jooga waxaan ka hadli doonaa sheeko ku dayasho mudan inta aynan sheekadan bilaabin aan isku soo laabano nin maalqabeen oo lagu magacaabo David Hardin ayaa deeq lacageed oo gaaraysa 100 milyan oo geni ugu deeqay jaamacadda Cambridge. deeqda uu maalqabeenkan bixiyay oo uu soo marsiiyay hay'adiisa uu isagu leeyahay ayaa noqotay tii ugu weyneed ee hadiyad ahaan loo gaarsiiyo jaamacadda ku taala waddanka UK isla markaana uu bixiyo qof u dhashay Britain. David ayaa horay u ahaa arday ka baxay jaamacadda Cambridge isaga oo hadiyadana uga dhigay mid lama filaan ah. lacagtan ayaa lagu maalgelin doonaa deeq waxbarasho ee loogu talagalay dadka sii wadanaya waxbarashada heerka ugu sarreysa ee shahaadada PhD-da. waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu soo jiito ardayda ka socota kooxaha ay matalayaan. David iyo xaaskiisa ayaa ka wada shaqeeya hay'adda. ku-xigeenka madaxa jaamacadda Professor Stephen Jeffy Toby ayaa sheegay in tallaabada uu maalqabeenkan qaaday ay tahay mid aad u qiimo badan. waa arrin qayrul caadi ah oo ay naxariis ku dheehan tahay ayuu yiri. afhayeen u hadlay jaamacadda ayaa sheegay in deeqda ay bixiyeen David iyo hay'adiisa lagu magacaabo Claudian Hardin Foundation oo ay ka caawin doonto sare u qaadista mashaariicda deeqda waxbarasho ee ay u sameynayaan dhaqaale ururinta gaaraysa 500 milyan oo geni. Mr. Hardin ayaa aasaasay hay'adiisa ka qayb qaadata maalgelinta caalamiga ah ee deeqda waxbarasho. xaaskiisa Claudian ayaa ka mid ah dadka uu ku kalsoon yahay ee la shaqeeya tan iyo markii uu dibadda u aasaasay hay'adda. 29 milyan oo geni oo ka mid ah deeqdan ayaa si toos ah loogu bixin doonaa deeqda waxbarasho ee loogu talagalay 100 arday oo diyaarinaysa shahaadada PhD-da kuwaas oo qoritaankooda la gudagali doono laga bilaabo bisha Oktoobar ee sanadkan. sheekadan waxay ina baraysaa inaynan ilaawin goobaha aynu wax ku soo baranay. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa sheekadan intaan mid la mid ah ku kulmayno. fadlan haddii aad fiidiyogan ka heshay like sidoo kalena haddii ay tahay markii ugu horreysay aad channelka soo booqato subscribe dheh gambaleelkana furo. fiidiyoga sii share garee mar walba waa idinka mahadcelinaya community-ga quruxda badan ee aad soo qortaan.